kulankana war degdeg ah. madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax al-Siisi oo kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan ay ku wada qaateen aqalka madaxtooyada ee dalkaasi Masar ayaa waxa uu digniin culus u diray dowladda Itoobiya. kulankan gaarka ee labada madaxweyne ay yeesheen ayaa waxa ay si wada jir ah u qabteen war-saxaafadeed ay ku soo bandhigeen miro dhalka wada hadaladii ay yeesheen iyo aragtidooda ku aadan xaaladda ka taagan gobolka Geeska Afrika. Cabdi Fattaax al-Siisi ayaa hanjabaadii ugu cusleed u diray dowladda Itoobiya oo ay horay isu hayeen dalkaasi Masar xilligan ay ishayaan dowladda Soomaaliya. madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi ayaa tilmaamay saameynta amni, dhaqan-dhaqaale iyo waliba siyaasadeed ee gobolka ay ku yeelan karto xadgudubka dowladda Itoobiya ee ay ku hayso dhanka midnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya inuu yahay mid aan loo dulqaadan doonin. waxa uu sheegay inaysan indhaha aysan ka fiirsan doonin xadgudub lagu sameeyo Soomaaliya maadaama Soomaaliya iyo Masar ay yihiin laba dal oo walaalo ah kuna midaysan ururada jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika. wuxuu intaasi ku daray in awood kasta oo Masar ay leedahay ee la garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed gaar ahaan buu yiri dalkan walaalahan ahay naga codsaday inaan garab istaagno. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa u mahad celiyay dowladda Masar mowqifka walaalnimada ah ee ay iska taageen damaca guracan ee dowladda Itoobiya iyo in xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar in la sii kordhiyo. isagoo oo sheegay madaxweynaha Masar uu mahadsan yahay ahmiyadda gaarka ah ee xilligan Soomaaliya uu ka siinayo dhinaca istiraatiijiyadda ee Badda Cas. Cabdi Fattaax al-Siisi, it is a great honor and privilege. maalin wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin, waxaa sharaf weyn ii ah inaan joogo magaalada Qaahira si aan madaxweyne Cabdi Fattaax al-Siisi uga wada hadalno horumarinta xiriirkeena labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Masar. waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyo shacabka Masar oo si heer sare ah inoo soo dhaweeyay aniga iyo wafdigayga. run ahaantii Soomaaliya waxa ay Masar u tahay saaxiib iyo garab walaalnimo oo fac weyn kuna suntan taariikhda, taasi oo aan rabno inaynu ku xaqiijino mustaqbal midaysan oo ku dhisan horumar, barwaaqo, is-ixtiraam iyo faa'iido guud oo laba dhinac la ah. intii aan ku guda jirnay wada hadalladeennii muhiimka ahaa ee maantay, waxa aan xusnay oo aynu soo gudbinay aragtideena xoogan ee dowladda Soomaaliya ee ku aadan in dowladda Masar ay kala shaqeyso sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee lagu jiro hubanti la'aanta siyaasadeed ee ku saabsan juqraafiyadda iyo jebinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Cabdi Fattaax al-Siisi taageerada degdega ah ee aan labalabaynta lahayn ee ay dowladdiisu ku cambaaraysay isku dayga Itoobiya ee xadgudubka sharci darrada ah ee madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. tani waxa ay daliil cad u tahay sida xoogan ee Masar uga go'an tahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waqtiyada adag iyo xaqiijinta in la ilaaliyo xeerarka caalamiga ah. sidoo kale tani waxa ay qayb ka tahay garab istaagga ballaaran ee ay noo muujiyeen dhammaan saaxiibadeena caalamiga ah, kuwaasi oo si wada jira u adkeeyay in Itoobiya ay ku qasban tahay inay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah ayna ixtiraamto madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Badda Cas waa qayb asaasi ah oo ka mid ah ganacsiga caalamiga ah, amniga iyo fursadaha hadda iyo mustaqbalka. Soomaaliya waxaa sharaf u ah inay leedahay saami weyn oo ka mid ah Badda Cas, mana aqbalayso intaa ka mid ah dhulkan ay qabsato dowlad kale sida Itoobiya oo kale. si kastaba ha ahaatee, wadamada mas'uulka ka ah Badda Cas ee leh kheyraadka ku jira sida dalkeena Soomaaliya waxa uu diyaar u yahay fududeynta kobaca dhaqaalaha adduunka iyo abuurista fursadaha iyada oo loo marayo hababka ganacsi ee caalamiga ah iyo sharciyada la ogol yahay. ugu dambeyn, mudane madaxweyne, waxaa sharaf ii ah inaan joogo magaalada Qaahira, waxaan rajaynayaa inaan si anba qaadno natiijada ka soo baxda wada hadalladeennii wanaagsanaa ee maantay. mahadsanid mudane madaxweyne.